محمد geedi oo kamid ahaa ra'iisul wasaarayaashii soo maray dalka Soomaaliya ayaa waxa uu soo bandhigay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynenimo ee soo socota 2016 waxaana xafladaasi ka soo qayb galay aqalka hoose iyo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ururka bulshada rayidka haweenka gobolka Banaadir kan qaranka siyaasiyiin wasiiradii hore ee dawladda xilka ka dhamaaday waxaana halkaasi ka hadlay oo dhanka haweenka kaga hadlay maama Caasho Cumar Geestir oo kamid ah maamooyinkii ka soo qayb galay meel aan haleelay horena wax uga soo qabatay dhex taagan tahay waxaan marnaba iloobin dawladdaadii inay aheeday dawladda ugu horeysay ee madaxtooyada furtay intii kala meel kala lagu shaqeynayay haddana waxaa ii muuqata dimuqraadiyad aad u ballaaran oo maanta qof walba oo maaragtay rabta inay wadankeeda wax ka qabato sidoo kale waxaa ka hadlay wasiir dawlaha wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya haatan jirta waxaan rumaysanahay sida khiyaar badan hore ee halkan ka hadashay ugu dhawaajisay inuu professor Ali Maxamed Geedi oo runtii inuu maanta soo taagay ay tahay musharax mudan inuu u tartamo xilka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya sida gabar qabtaan ee kursigan ma ahan kursi madaxa akhyaar badan ku tartamayso ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay musharax xilka madaxweynenimo u taagan Ali Maxamed Geedi oo sheegay in uu sameyn doono isbedel dhanka siyaasadda ku saabsan shaqeynaya hay'adaha qaranka ee doorta ama ay dhisa muwaadiniinta Soomaaliyeed bulshadooda rayidka ah hay'adahooda samafalka wadaniga ah lamaanayaasha horumarinta iyo beesha caalamka ugu dambaysa ee ajandayga siyaasadeed oo aan rabo inaan ku hogaamiyo dalka haddii fursad la siiyo waa in bulshada Soomaaliyeed laga bedelo mid sabool ah dib u dhacsan oo burbursan loona bedelo mid xoog leh casri ah midaysan oo barwaaqaysan waxaan idinka codsanayaa inaan helo ogolaanshaha Soomaaliyeed si aan u adkeeyo isbedelada iyo guulaha aad ku haminaysaan oo aad ku riyoonaysaan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan ajandahayga siyaasaddu wuxuu diiradda saarayaa adeegyada bulsho dhaqaale oo toos ugu xiran tayada nolosha iyo horumarinta dadnimo gaar ahaan caafimaadka waxbarashada biyaha nadaafadda iyo sidoo kale dhismaha oo ku wajahan nidaamka korontada iyo gaadiidka waxaa is soo tariyay muddooyinkii ugu dambeeyay musharaxiinta isku soo taagaya xilka madaxweynenimo ee soo socda sanadda 2016 Hiba Maxamed Nuur waa Bari TV Muqdisho.